halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne cagaf beeraha xaadha xididka kaynta u saarta iyo mid xaraarta qodaysa oo buurta xoog ku maraysa rarka gaari la tiica booyad dhaanka shubaysa xidig baa dalka keenay ee bulshoy la xidhiidh haddii aad xadka joogto ama xeebta Jabuuti ama aad xamar jiifto ama xoogga Hargeysa xaafadaadu ahayd ma rabtaa xasanow gaadhixiisa wanaagsan oo xawaarihiisa la yaabo xidig baa dalka keenay ee bulshoy la xidhiidh shirkadda agabka gaadiidka ee xidig motors waxay ku haysaa baabuur kala duwan sida cagafta beeraha booyadaha biyaha iska rogooyin dheenayaasha iyo gaadiidka raaxada ee Leyla Calaawi qaaruun baa ku xaraama waxaan xiisa lahayne xilkas baa la rabaa ummadeeda xurmaysa gaadiidka raaxada oo qiimuhu jaban yahay baad ku kiraysan kartaa xilli kasta iyo goob kasta xidig baa lagu deedamaya waxay ku taallaa bartamaha Hargeysa agagaarka shacabka waxay faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda xidig motors dowladda islaamiga ah ee kacaanka Iiraan ayaa sheegtay inay haddii dowladda reer galbeedku daba ambuulan yihiin ee yuhuuddu maagto inay la soo doonato adyad iyo daandaansi dhankeeda ay gacan wax kaga wanaajin doonto afhayeenu hadlay xukuumadda Ayatollah Ali Khamenei oo taagnaa meel sandalagla sidoo kalena biro badan ayaa sheegay inaanay sinaba u aqbali doonin in dalkooda lagu soo ekeeyo weerar hankaag gardarro ah iyo weliba isyaalyaal waxa uu sheegay in la joogo kolkii shaqo laga qaban lahaa yuhuudda oo uu ku tilmaamay inay yihiin qaar far dheeraada ku noqday carreedeg waxa Iiraan intaa ku dartay in hadda kadib ay u dhabageli doonto in la sameeyo ciidankii loo dumi lahaa sidan iyo Tel Aviv dowladda yuhuuddu dambaabto ayaa waayahan dhuraysay inay haddii Iiraan laga qaado cunaqabataynta iyo labada biyo buufeelala lesan yahay ay qaadi doonto tallaabo ay ka naasnaasiso lama garanayo sida uu noqon doono xaalka gobolka bariga dhexe oo waayahan kacsan xilli dagaalo qabow iyo mid kulayl wataaba ka durfaan dhabeeyo koonkan aynu ku noolahay wararka iyaguna ka imanaya sidan iyo magaalada Dubai dowladda jeesaska midoobay ee Imaaraad la yidhi ayaa dhul ay dhistaan iyo beera ay fashaan u qayday dadka yuhuudda ee ka ceel haya Imaaraadka Carabta oo beryahan bay ismeerxadayeen dowladdan carbeed ayaa sheegtay inay uliya diirkeed ay noqdeen iyaga iyo yuhuudda oo ay ku socoto tii la mamnuucay taas aawadeedna ay geed ka go'an tahay in la istaarto wax kasta oo la iskula itaali karo yuhuudduna ay degi karto dhulka carbeed waxaa la sheegayaa in yuhuud badani ku soo ekaanayso kuna soo deedamayso sidan iyo ceelka Dubai si ay wax uga qaytaan dhulka halkaasi looga yaboohay dad badan ayaa ka deeriyey qorshahan ay Imaaraadka Carabtu bilaabeen iyagoo sheegay in tani tahay bilo hor leh iyo wax waa horeba la eeday oo reer Falastiin lagu dagay waxaa la wada og yahay in kolkii ay yuhuuddu soo degtay dhulka Falastiin ay ku soo gabatay iskuna soo toosisay isdhig iyo qaab qabow oo doqonimo garataya in la wadi jirayba waxaa la sheegayaa in hadda yuhuuddu ay mar kale maagan tahay wax la mid ah tabcooyinka ay hore u geysatay taas oo ah shirqool labaad oo ay u maleegayso reeraha deman ee carbeed isaguna xirsi cali xaaji xasan oo socod baaliqaadaysa ku tegay galabta casarliiqi markii qoraxdu badbadatay dargada baadhista dambeeyada ee Hargeysa ayaa sheegay inuu soo arkay dhowr weriye oo ka jiiq lahaa booraan halkaa ku taala wuxuu sheegay in qolyaha fulotada leh halkaasi ugu tageen aanay bilaayo qabin marka laga reebo Maxamed Cabdi Ilig oo bitiyey in xanuun xagga sabarka ahi ku soo labakacleeyay wuxuu sheegay inay soo arkeen weriye kale oo markii la qabanayay sheegay in madaxa jugay ka gaarsiiyeen askartii laba diblaysay kaasoo la dhaho Axmed Shimaali intaa wuxuu ku daray xirsi cali xaaji xasan inaanay weriyaashaasi Iliya baal saarin wax garyaqaan ah oo u doodaya si meesha looga soo saaro balse ay iyaguna kula itaali doonaan dhowr garyaqaan xirsi wuxuu sheegay in askartu si wanaagsan ula dhaqantay oo qolyaha wararka maacuudiya ay ka mahad sheegteen sida loola shaqeeyey isagoo iska sii wata hadalkiisa wuxuu sheegay xirsi cali xaaji xasan in xaalku yahay carhadla iyo juuq odhan kara caburin iyo handadaad ay la soo baxday xukuumadda madaxweyne Biixi oo booqasho ugu nimi maxaabiista xidhxidhan guud ahaan gaar ahaan inaanu aragno suxufiyiintii la soo xidhay dhowaan waxaanu aragnay dhammaantood intii maalintii dhito la xidhay oo ilaa 15 filaya tiradooda ahayd hal maxbuus oo ka horreeyay oo aan codsannay nooma suurtagelin oo Cabdi Jarmin la yiraahdo oo isna suxufi hore ka horreeyay ahaa intii aanu aragnay dhammaantood way caafimaad qabeen marka laga tago Maxamed Ilig oo ka cabanayay xanuun waxa weeye hore oo ahaa caloosha iyo nin sheegay nabar madaxa uu kaga dhacay inta oo ay yani markii la qabanayay madaxa nabar lagaga dhuftay
inta kale way nabad qabeen caafimaadkooduna way fiicnaayeen waxoogaa caafimaadka xanuunkaa hore uu ka cabanayay maxamed cabdi elig wuu jiraa waana ka muuqatay wejigiisa cabatankiisina wuu noogu daray ha yeeshee wuxuu noo sheegay inuu dhakhaatiir arkay jawigiisuna iminka halkii markii hore laga soo qaaday uu ka fiican yahay oo markii hore halku ku xidhnaa iyo halkan marka loo eego inuu jawigiisu ka fiican yahay oo caafimaadkiisu fiican yahay waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah oo qaarkood laga yaabo in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan laakiinse si gaara wax dhibaato ay gaar ah oo iyagu sheegteen oo u gaari ma jirin oo ay kala kulmeen xerada CID-da marka laga tago dhacdadii hore la qabqabanayay cabatinka ay sheegteen waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda looyariskoodii inaanay looyar arag waana looyar la kulmin waxaana aan hubinaynaa ma looyaradaanu iman mise waxa weeye waan loo ogolaantaa waa hubin doonaa annana waxaanu looyaraan u qaban doonaa haddaanu nabad qabno kiiskooda ka shaqeeya ayaanu u qaban doonaa waxa ay noo sheegeen inaan hay'adihii xuquuqul insaanku hay'adda qaranku mooyaane aan hay'adaha kale madaxa bannaan weli arag si guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inaan waxba dhibaato ka jirin caafimaadkoodana waa naga sheegnay aragooduna wuu wanaagsanaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in dhammaantood ay xorriyaddooda helaan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa oo aanu ku cambaaraynayno horena uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldanaa oo aan waayaran lagu qaban oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka loo qabtay in markii dambe qaarkood la laayay ay hablo ku jiraan oo nabarra gaadheen oo ay ka cawdeen markii la qabanayay sidii loo dhibaateeyey iyadoo aan ilaa hadda waxa weeye aanay helin looyarudooda oo ay sheegeen yani rumaanka la keenay inaan ilaa hadda looyarkoodii aanay ilaa hadda looyar helin waxaanu leenahay xukuumadda xorriyaddoodii ha loo sii daayo saxaafadda yaan la caburinin waxay u muuqataa oo annaga noogu muuqataa inay tahay caburin waxay u muuqataa car hadla waxay u muuqataa in hanaankii dastuurku u damaanad qaaday ee ahayd xorriyatul qowlka ee ahayd dimuqraadiyadda ee ay ahayd saxaafaddu tiirka afraad in lagu xadgudbayo oo la culaysinayo oo dadka la doonayo intii haddi lahayd iyo intii wax diidi lahayd inay diido horaan uu sheegnay inay nidaamka maanta jiray iyo xukuumadda maanta jirtaa ku xadgudubtay sharcigii oo ay xidhxidhay wixii ra'yigooda ka soo horjeeda oo ay xisbiyadu ka mid yihiin oo waxa weeye madaxda xisbiyadu anigoo ugu sarreeya la iga yeedhay kuwa naga hooseeyana la xidhxidhay marka waxaanu leenahay hanaankaasu maaha hanaankii Soomaaliland ku heshiisay maaha hanaankii dimuqraadiga ahaa maaha kii dastuurku u damaanad qaaday waa sharci darro intaa warranay waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay oo maxamed aadan dirirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante anigu afkeena lagu ciyaarayo hees baan ka tiriya farteena oo ka hadlaysa afafka kale waynu ilaalinaya faraha kale markaynu wax qorano boorarkii magaalooyinka oo dhan ingiriisi baan ku qoreeya carabi farteena ayaan markaa u bixiyay heesta bandhigiina waa ka akhriyey bugaagta hargeysa caalamiga in heesta kooxay qaaday ku fiican tahay wadar oo ardada iskuullada in loo dhigay ku fiican tahay oo idaacadu inay sii daayeen bay ku fiican tahay farteena ka daaya dheeldheelko dhammaystira shaqalka kii dheero xarfaha laba dhaca ha dhaawicino hamsaha dhaabadda ha dhayalsanino sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiiltankan hoy ku dhiirada waa beydka koowaad beydka labaad wuxuu odhanayaa abdhigiina qalaadba waa idin dhistaan ingiriisiya carabiga kuwa asaagiina kale gaadooda waad dhudhumisaan oo dhaliishana waad ka dhowrtaane dhammaanba farteena dhooyga gasho u dhaama sidaad u dhumiseen sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu dhahmaa marka waxaa layaata ugu dambaysaana ciddii dhaadhaadha dhaminayso dhaqsaba keenugu u dhaadhiciyo murtibaa lagu dhuday dhitiya faralo sugaanta dhankeeda dheegsado dhabtaad fahmaysaan dhammayska sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa oo sidaad u dhigtaana wuu u dhahmaa dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiiltankan hooy ku dhiiradaye laxan horow jiray waan saaray Sommoney Exchange applicationka Sommoney Exchange waa application ku sahlaya inaad si yar oo fudud u kala sarifato lacagaha dollar iyo shilling applicationka Sommoney Exchange waxaad ka sarifan kartaa lacagaha saad dollar iyo shilling sidoo kale waxaad applicationka Sommoney Exchange ka sarifan kartaa lacagaha e-dahab dollar iyo shilling labadaba applicationka Sommoney Exchange wuxuu ku sahlayaa inaad ogaato qiimaha isku sarifka lacaguhu isla markaa aad sarifanayso ay marayaan
haddaba applicationka Sun Money Exchange waxaad si yar oo fudud ugala soo degi kartaa Google Play Store-ka isagoo aan kaaga baahnayn wax space oo fara badan